كشقية دنتا دينتا إذا هو هيو madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo isla markaana kulamo kala duwan la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka Garbaharey ayaa galankii dambe shalay kulan ballaaran la yeeshay dhammaan xubnaha ururada bulshada rayidka odayaasha dhaqanka waxgarad haween dhalinyaro isla markaana ay goobjoog ka hayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada gobolka Gedo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland agaasimayaal ka tirsan wasaaradaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale kulankan ayaa madaxweynaha bulshada ka xog wareysanayay xaaladaha guud ee deegaanka xalinta tabashooyinka ay qabaan bulshada ee dowladda iyo ujeedka socdaalkiisa gobolkan uu ku yimid gudoomiyaha degmada Garbaharey mudane Imaan Cadow Kaarshe iyo qaar ka mid ah qaybaha bulshada ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay kulamadan uu la qaadanayo ururada bulshada ayna ku faraxsan yihiin safarkiisa wixii ku aadan waxqabadka madaxda in lagu la xisaabtamo bulshadu inay soo jeediso kii cadaalad darro ka shaqeynaya iyo kii gaabis ku jiro iyo kii xadaya amaanadaas ummadana bulshadu ay noqoto ayadoon xamanaynin bulshadana taasaa laga doonayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan meeshaan ku soo dhawaynaynaa u soo bannaan baxnay raalli ku nahay imaatinkiisa soo dhawaynaynaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan waxaanu ku talagelaynaa ilaahay baa mahadle wax fara badan oo naga maqnaa inuu nagu soo siyaadin doono mar waxaan ognahay asagoo madaxdanadii ah haddana dadkiisa iyo dalkiisa inuu u yimid ugu imaanay waa xalfad aan ugu talagalnay in aan ku soo dhaweyno madaxweyne soo dhawow baan ku leenahay waxa way reer Garbaharey dhaliil badan bay tirsanayaan waxaan filayaa dhaliisha ragii loo qabay ragii ugu musareeyay waa joogaa baan u malayn waxaan rabaa reer Garbaharey si fiican dhaliisha ay tirsanayaan inay u jeediyaan waxaan leeyahay mudane madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow deegaankaadii halkan waa gobolkii markii madaxnimo marka la dhaho waa gobolkii aad ka soo jeeday waa xaruntiisi waa deegaankaadii ku soo dhawow baan ku leenahay mar walbana waxaan diyaar kula nahay inaan kula shaqeyno in wax walba oo midnimo ama horumar ah ama muxuu ahaayay ii sheeg higsi wanaagsan inaan kala shaqeyno oo kula jaan qaadno maxamed aadan gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa dhankiisa bulshada u sheegay in nidaamka dowladnimo uu yahay mid hanaqaad ah isla markaana bulshada looga baahan yahay ilaalinta nidaamkaasi ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo bulshada u sheegay inay ilaashadaan nimcooyinka Allah siiyay oo ay amniga kow ka tahay sidoo kalena ka warbixiyay ujeedka socdaalkiisa ku yimid gobolkan Gedo ma jecel insha Allah maanta hadal badan meeshaan ka iraahdo hadalkani wuxuu yahay soo dhaweyn aan soo dhaweynayno madaxweynaha ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan war maxaa deegaankanaga maslaxa u noqon kara xagee wax ka qaldan yihiin maxaa qaldamay xagee ku qaldameen see loo sixi karaa inta inaan ka xisaabtano waxaan shay ku jirin hal isku imaado hal wada hadlo qof walba qofka kale aragtida uu kaga gedisan yahay ha ugu dulqaato waxa soo baxaysa marka fikir saliima oo intanadan isku dambaanay amniga soo dannooma wada intanada manin amniga diidan baa jira horumar inaan helno oo dhalinyarada shaqooyin loo helo ma ciidan baa jirta caafimaadkii waxbarashadii iyo kaabayaasha dhaqaalaha inta inaan wax ka qabsano ma ciidan baa jirta inaan qofna qof kale uusan ku xad gudbin waxa la leeyahayna si cadaalad loo wada qaybsado ma ciidan baa jirta ma cid rabta cid kale inay wax inta uga soo buliso ayadoo qaadataa jirta waa maya waxa meel cad oo la isla og yahay lagu xisaabtamo nidaamka Jubbaland waa nidaam dhisan waa nidaam ka kooban 3 gobol qabiil gooni ah male qabiil gooni ah xukuma haysan karo qabiil gooni ah xukum meel kuma qabsan karo waxay dad fidna wadayaal ah oo raba dadka inay dhexdooda dhibaato ka dhex abuuraan oo niman siyaasiyiin ah oo raba dadka markay dhibaato ka dhex abuuraan inay dantooda qaaska ku gaaraan qolada waxaan arkay carradana ciidamo laga abaabulayaa oo Kismaayo la qabanaya arrintaas sax ma ciidamo gada laga abaabulayo oo Kismaayo lagu qabanayo ma jiraan
waxaa weeye dadka Kismaayo jooga iyo dadka Geda jooga waa dad walaalaha wey waa dad shacaba mas'uuliyiin bay leeyihiin mas'uuliyiintoodaas dadku shacabka ama Kismaayo ha joogaan ama Geda ha joogaan ama Jubbada Dhexe ha joogaan way la xisaabtami wixii ay u igmadeen haddii ay fuliyeenna way ku abaalmarin wixii loo igmaday hadday ka hoos dhaceenna meesha way ka wareegayaan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin awalan ilaahay baan u mahadcelinayaa labadii gole ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxweynihii dowlad goboleedka Jubbaland Salaam Beel kaga siday socdaalkayga kuma ekeen magaalo madaxdeenan Garbaarey waxa ay inaan degmooyinka gobolka dhan marno buurdhubo aan halkan kaga xijiyo saad la socotaan buurdhubo oo dhismihii dowlad goboleedka Jubbaland aan lagu guuleysanin in degmeynimo loogu xisaabtamo wixii ka dhinnaa dhamaystirkoodii inaan u tago ayadoo aan dukumiintigeedina wado kadib baar dheer tago kadib degmooyinka dambe oo Luuq iyo Doolow iyo Balaxawan maro halkan waxaan ugu soo hormaray ayadoo ay jireen meelo ka dhib badan nooga baahi badan inaan tagno degdeg wax u qabanno maadaama magaalo madaxdii ay tahay madaxana ay tahay meesha bini aadamkana hogaamiso adduunyadana laga hogaamiyo waxa kale oo ugu soo hormaray arrinta hadda gobanarku ka hadlayay ama gudoomiyaha gobolka Facebook oo 7 mashruuc oo halkan nooga fuli lahaa sanadka intuusan dhamaanin ay nooga hakadeen kadib markii wasiirka hore qorsheynta oo xilsi u yimid buuqi ka bilowday waxa laga yaabaa inay dad badan ogeyn laakiin dadkayga wax la jira waxaan ognahay 7 mashruuc oo muhiim ah nooga baaqatay waxaa jira nidaam aan dejinay oo ah in dawladihii hoose councils kala dhiso xeerka waa la meel mariyay waa la daafuray fulintiisii iyo xagga dhaqaalaha cid naga kaalmeynayna waa helnay sideen uga howlgalnaa in golayaashii deegaanka oo salka ballaarnaa mashaariic fara badan oo GBLs la yiraahdo nooga xiranay aan u hirgelinaa sidee ammaankeena u sii horumarinaa oo waa kan oo dhinac walba waa laga taagan yahay qoliyaha Jubbada Dhexe iyo waxa laga fikirayaa iyo Jubbada Hoose wax laga qabto horta magaaladii Ceel Cadda ahayd iyo Tuulo Barwaaqo iyo Raas Qoday maxay ku sugan yihiin inaan isweydiin hareeraheena maxaa ka jira annaga iyo beled xawmiisu soconnaa annaga iyo Luuq miisu soconnaa annaga iyo baar dheer miisu soconnaa xafladan mahadcelintaas ay ahayd socdaalkayga inaan kaga warramo qayb u shirno mobiladii TV-yada iska damino halka ay ka soo baxdo tala inta naga maqan iyo annagaba aan ku dhaqmi karno inaan ka soo saarno dhaliisha annaga noola hayana noo cadeysaan oo naga qarin wax badan baa inoo yeelo cidna dhaliishay waa cid doonaysa inay wax qabato ha soo diyaar garowdo annaga ciidan daraabna haysaba dadkii baa nagu yaraaday shaqadii baa nagu yaraatay wax nala qabto baan balaanahay intayna dhaliilaan oo hoggaanka naga bedelaan qoriisu dhiib weeyaha naga qaateen xilligeeda dhalinyarada waa madaxda berrito weeye adinka dhaxal kale wixii aanu qabanay qoriisu dhiib weeye adinka sii qaadayo maskaxda iyo aqoonta dhalinyarada inta la timaadaan oo nagu xisaabtantaan haddana nagu kaba inta waqtiga inoo dhiman markuu waqtiga dhamaadaan adduunka hoggaanka halkaas ka sii waxaynay aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa xilliga maqribka soo galay qayb baan isu heli doonaa talooyin badan oo wax ku walbaan isla dhisi doonaa aanu iscafinno niyadaan isu furno qof walba tala ay xasadnimo ku jirin ha soo bandhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Umar Idris Ahmed raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Garbaharey ee xarunta